Shilkan diyaaradeed ayaa maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Juba Airways oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala geyga Soomaaliya ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradda ayaa la sheegay in xilliga burburka ay la kulmaysay ay soo caga dhiganaysay dhabaha garoonka diyaaradaha Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradda ayaa la sheegay inay ka soo duushay markeedii hore magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayadoona markaasi halka ka soo qaaday rikaab. Dhammaan dadkii rikaabka la socday diyaaradda ayaa la sheegay in gebi ahaanba la soo badbaadiyay, mana jirto ilaa haatan wax khasaara oo la sheegay inuu ka dhashay burburkaasi diyaaradeed oo maanta ka dhacay garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona u sheegay inay arkayeen diyaaradda mid ka mid ah baalasheeda oo dhulka ku dhufsatay kadibna ka baxday dhabihii loogu talagalay in diyaaraduhu ay adeegsadaan. Waxaa la arkay iyadoo uu socdo gurmad xooggan oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadkii diyaaraddaasi saarnaa laguna daminayo dabkii ka kacay baalasha diyaaradda.